nin la yiraahdo al-Fudayl ibn Iyad oo culimadii muslimiinta kamida walibana ahaa nin aad u cibaado badan oo kelmado xikmad badan laga hayo aad u xikmad badan ayaa waxa dhacday wuxuu ahaa nin naftiisa aad ugu gabad falay wuxuu ahaa nin dadka dhaca jidgooyooyinka u gala dhibkiisa iyo sharkiisu aanu yarayn dhinac walba u tuura gabadh buu jeclaaday isagoo xaalkiisu uu sidaa yahay dabeedna habeenada kamida wuxuu doonay inuu gabadhii uu jeclaa guriga ugu soo dhaco gidaarkii isagoo fuushan oo doonaya gabadha inuu guriga ugu soo dhaco la kulmo ayaa wuxuu maqlay waa habeen barkii qof salaatul leelkii ku tukanaya ku celcelinaya alam ya'ni lil ladina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dhikri Allah wama nazala min al haqq miyaanay ku dhawaan xaalkoodu aanu gaadhin oo aanay soo dhawaanin dadka mu'miniinta ah inay ku khushuucaan oo qalbigoodu uu ku khushuuco ilaahay xuskiisa iyo waxa uu soo dajiyay xaq ah markuu aayada maqlay buu baraarugay macaasiya dunuub dhaxta baalanay uu ka soo laabto gidaarkii waa ka soo dagay gabadhiina uma tagin wuxuu u hoyday meeshii uu hoyanay markuu meeshii si tagay ayaa wuxuu maqlay dad socota waa habeen barkii oo safara oo meel agtiisa ku sheekaysanaya oo qaar ay leeyihiin aynu guurayno oo socodka sii wadno qaarna ay leeyihiin waar ninkii Fudayl ibn Iyad ba meelahan ka dhow waagu habariyo hadaynu habeen socono jidku inoo galaya waa ina dhibaataynaya waxa galay baraarug kala galay wuxuu go'aansaday Allah subhanahu wa ta'ala inuu soo noqdo wuxuu ka mid noqday dadkii culimadii muslimiinta ee walibana cibaadada iyo zuhdiga iyo khayrka iyo wanaaga ku caanbaxay hadalladoodana aad ka loo daliishado xikmadkii culimadii muslimiinta ee walibana cibaadada iyo zuhdiga iyo khayrka iyo wanaaga ku caanbaxay hadalladoodana aad ka loo daliishado xikmadaha caanka laga dhaxlayna waxa kamida wadada xaqa markaad hayso ee ilaahay aad u cibaadeysanayso waxa weeye cidhiidhiyaanay ku galin oo ha dareemin kalinimo dadka kooban ee kula cibaadeysanaya ama dadka cibaadeysanaya yaraanshahooda waxa weeye ha dareemin hana ku dagtoomin dadka aadka u badan ee ilaahay caasiyaya ee dunuubtiisa dhex dabaalanaya kuwaana ha ku dagtoomin xikmadiisa ay kamid tahay